بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وأهراديو أول USB أونلاين waxaan doonaynaa galabta oo aan la yeelanay interview xogeyaha guud ee ururka USB Professor Axmed Cumar oo aynu doonayno in aan wax ka weydiino dawladda Cabdiweli federaalka ee cusub sida uu arko golaha wasiirada cusub oo uu sameeyay dhawaan. horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin soo dhaweynayaa idinka bahda iyo USB waxaan salaamayaa horta marka ugu horeysa. talabaad waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed kulli codkayga maqlaysa meel kastoo ay joogaan dhammaantood, gaar ahaan gobollada aan kasoo jeedo gobolka Awdal, Maakhri iyo Khaatumo. ummadooda dhammaan waan salaamayaa, madaxdooda iyo shacbigooda dhammaantood. waxaan salaamayaa kale xukuumadda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka uu madaxda ka yahay Cabdiweli, madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed waan salaamayaa. inta kolkaan dhaafo waxaan horta soo dhaweynaynaa, mar horena waan sheegay, dawladda Cabdiweli waan soo dhaweynaynaa, wuu soo dhisay, annagoo ka rajaynaynaa inay noqdaan dawladdiisa Cabdiweli iyo dawladdiisuba noqdaan kuwo ka turjuma hadafka iyo afkaarta ummadda Soomaaliyeed, dhowrana dastuurka ummadda Soomaaliyeed, kuna shaqeeya awoodda dastuuriga ay xaq u leeyihiin midayn karta ummadda Soomaaliyeed, una xaq soori karta ummadda Soomaaliyeed, gobol walbana siin karta waxay xaq u leeyihiin. waayo mas-uul waxay ka yihiin 18 gobol oo dalkii Soomaaliyeed ahaa bay gacanta ku hayaan, mas-uuliyadooduna iyagay saaran tahay. ummadda Soomaaliyeedna way u dhaarteen, mas-uuliyaddaana waa iyagaa u xambaaray. marka halkaa markaan marayno waxaan leenahay muddadii ka horreysay dawladda Cabdiweli ee maanta lasoo dhisay waxaad mooday inay dawladdu dhinac ka rarnayd oo awood prime minister iyo awooddii madaxweyne iyo inuu madaxweynuhu isticmaalay annagoon ku eedeynaynin haddana tabanayna dee inay qalad ahayd. waxaan leenahay dawladda Cabdiweli waxaan ka filaynaa inay iyadu noqoto dawlad run ahaan isticmaasha waxay awood leedahay iyo xaq ay leedahay dastuurku siinayo, ummadda Soomaaliyeedna tixgeliso waxay xaq u leeyihiin. waana soo dhaweyna. Professor Axmed, waxay ila tahay in shirarkii ugu dambeeyay ee September ay ku aadeen wufuud ka socota Somaliland oo hogaaminayo madaxweyne Siilaanyo ay tageen Turkiga, dabadeedna Turkiga uu u balamiyay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee federaalka mudane Xasan Sheekh in uu soo gaaro magaalada Turkiga, ayagoo Turkiga u soo bandhigay mashaariic ilaa iyo 8 ah sida ay ayagu warka ku sheegeen. dabadeedna waxaa la sheegay in arrinta ayada ah ninkii madaxweynaha Xasan Sheekh uu u soo saxiixay oo u soo fuliyay wax alla wixii ay doonayeen oo ay ku iibsanayeen in ay Soomaali weyn ugu mid noqdaan gobollada aan mas-uulka ah ka tihiin ee Awdal, Khaatumo, Maakhir. waxay degaan waqooyiga Soomaaliya juqraafi ahaan. mashaariicda loo saxiixay ayagu ilaa iyo hadda wax mashaariic ah ama horumar ah oo dhulkooda ka socda ma jiro, waana dadkii gobonimada iyo midnimada Soomaaliyeed u dhimanayay oo hortaagnaa inuu dalka kala go'o. arrinta ayada ah maxaad ka oranaysaa? horta waxaan ka oran arrinkaa anagu kulli mar horena waan ka hadalnay amba marar badan. umaanu aragno mas-uuliyad saaran ummadda Soomaaliyeed amba dawladda Soomaaliyeed in meeshaa lagu fuliyey. waxaan u aragnaa anagu in lagu hirgeliyey reer amba beel ka mida beelaha Soomaaliyeed amba gobollada Soomaaliyeed ka mida keliya in loogu caanalisay, laguna dayacay ummad Soomaaliyeed oo kale oo ugu badan waqooyi sida Maakhir iyo Khaatumo iyo Awdal. waxay yihiin gobollada mas-uulka uu ka yahay madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed, xilkana uu qaaday una dhaartay inuu simi doono. marka waxaan u aragnaa gef uu ka galay ummadda Soomaaliyeed meelna ugu qoran. annagu haddaan nahay ururka USB-na waa noo qoran yahay, waana waxaan kula xisaabtami doono madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed labadaba. waxaan kula xisaabtami doono, waayo waxaan u aragnaa mas-uuliyaddii qarannimo ee Soomaaliyeed ee loo saaray inay ka faramarsadeen oy ka baxeen oy ka daryeeleen gobol Soomaaliyeed
oo isagu cadhoonaya waxa uu ku cadhoonayana annaan weli la gudagelin lagana hadlin laguna indhahana lagaga xidhay ummad soomaaliyeed oo laga reebay waxbarasho iyo caafimaad iyo daryeel kaleba laga reebay dadkii la da-da ahayo gobolka u dhashay sida maamulka lagu magacaabo somaliland aad moodo in iskuul iyo laami iyo caafimaadba loo ogolaaday ummadda kalena laga qadiyay markaa waxaan u malaynayaa madaxweynuhu wuxuu iloobay inuu mas-uul ka yahay ummadda soomaaliyeed oo dhan dhammaanteed waxaan leenahay markaa hadda weli dabaqabashaa la joogaa markaa waxaan leenahay madaxweynuhu adiguna ku ekow inta awoodda sharciga soomaaliyeed ku siinayso oo ah inaad ilaaliso xuquuqda ummadda soomaaliyeed dhammaanteed iyo shuruucda ummadda soomaaliyeed u taalla inaad ilaaliso sida sharcigu ku dhigayo prime ministerka maanta la doortayna waxaan leeyahay adigay awooddaas adigay xukuumadaaday saaran tahay inaad ummadda soomaaliyeed sintaan dhaqaale iyo cadaalad iyo dhinac walba inaan la simo ummadda soomaaliyeed 18 gobolna la daryeelo gobol walbana dadkiisa loogu dhiibo taladiisa iyo wixii horumar ee la bixinaya oo laga sinaado taas baan ugu baaqaynaa kulli waan gartay professor Ahmed xogayaha guud ee ururka USP waxaan kaloo doonaynaa in aan wax ka weydiino arin ayaa hore aad ka sharqamisay oo ahayd fikir in maamulka qaatumo oo hadda lagu wada inuu shir uu ka dhaco Taleex hadduu alla yiraahdo in mas'uuliyiintii G11 oo hadda nin odaya uu ka dhintay Allah u naxariistay G10 ay ku soo hareen in bal arinta in oodal iyo maaqir iyo qaatumo oo midaysan ay maamul samaystaan si kastaba ha noqotee arrimaha ayaga dhanka oodal iyo dhanka G10 ma jirtaa mas'uuliyiin aad kala hadashay howlaha horta waa jiraa oo de fikir kasta oo adduunka jira wuu jiraa dastuurka dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay dastuur aqabiya oo wali bislayn macnaha la oran karo wali lama xalaalaynin afti ummad Soomaaliyeed buu sugaya haddii la dhowri waayo markaa dastuurka iyo nidaamka ummadda Soomaaliyeed iyo 18 golob masiirkooda iyo noloshooda haddii la dhowri waayo annagu waan ku fikiraynaa kuna baaqaynaa haddii la yiraahdo in aanu noqono dowlad goboleed ka midaysan awdal iyo maakhir iyo khaatumo inay ku midoobaan dowlad goboleed kana mid noqdaan shirka insha Allah ta'ala Taleex ka dhicayna waan ku soo qaadaynaa kulay talooyinka aniga qudheedu waan ku tali jiraa insha Allah ta'ala inaan ka qayb galo shirkaas waana ku baaqay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay professor Ahmed Umar xogayaha guud ee ururka USP oo ururka midnimada Soomaaliyeed